arrintan baaritaankan sida wadajirka ay u sameynayeen guddi isku dhaf ah oo ka tirsan dawladdan Turkiga iyo dawladda Sacuudiga ayaa maalmahanba ka socday diyaar garowgeeda iyo habkii baaritaanka loo sameyn lahaa. arrintaasi waxay si toos ah u bilaabatay ama si rasmi ah u bilaabatay shalay kadib markii ay Sacuudigu ogolaadeen in la baaritaan lagu sameeyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul. arrintaas markay baaritaankaasi waxuu socday saacado dheer oo ilaa xalay halkii ayay qolyaha baaritaanka ku jiray ayay ku bariyeen sida ay wararku sheegayaan. waxaa kale oo jirta in isla galabta saacadan hadda aan kula hadlayo la gelayo ama baaritaan lagu sameynayo guriga qunsulka Sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinayay Jamal Khashoggi uu galay. halkaasna baaritaano ayaa iyagana ka socon doona. ilaa hadda maaragtay hawlahaas ayaa sidii maaragtay la qorsheeyay ayay u socdaan. hawshu halkaas ayay saacadan aan kula hadlayo maraysaa Xuseen. wakaaladda wararka AB waxay qoraysaa in saraakiil ka tirsan Turkigu ay u warameen wakaaladda una sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in Jamal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda. wax faahfaahin intaa dhaafsan oo la hayaa ma jirtaa? Xuseenow, way jirtaa arrintaas. waxaa jirta in ay warar aan si official ah ama si rasmi oo kama dambaysa aan loo soo bandhigin in muddo ay dawladda Turkiga ay si maaragtay ay uga soo baxayeen isdaba joog ay uga soo baxayeen. hadda ka hor waxaa jirtay in ay sheegeen in ay hayaan cadaymo sheegaya in la dilay Jamal Khashoggi, in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda in lagu dilay, kuwaas oo maqal iyo muuqaal intaba isugu jira oo ay la wadaageen. waa sida warka lagu sheegay wadamo kale oo uu Maraykanku kamid yahay in ay la wadaageen. arrintaasi si kama dambaysa weli maysan usoo bandhigin Turkidu. waxaana muuqatay in ay la sugayeen baaritaankan hadda socda iyo natiijada kasoo bixi doonta iyo wixii horey usii hayeen in ay hal mar inay usoo bandhigaan caalamka in ay sugayaan ayaa muuqatay. madaxda waddankan Turkiguna waxa ay sheegeen in ay caalamka waxay natiijada kama dambaysa ay usoo bandhigayaan loona xil saaray ninka maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee magaaladan Istanbul oo haatan uu ku-xigeenkiisu kamid yahay kooxda baaraysa ee dambigii la sheegay inuu ka dhacay qunsuliyadda ay Sacuudiga ku leeyihiin magaalada Istanbul oo loo geystay saxafiga Jamal Khashoggi. dhanka kale waxaa jirta Xuseenow in ay jirto ay sheegeen wararku ilaa shalay baaritaankii lagu sameeyey qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyihiin magaalada Istanbul in ay Turkidu hayaan cadaymo la taaban karo oo sheegaya in Jamal Khashoggi lagu dilay jirkiisa na lagu jarjaray qunsuliyadda ay ku leeyihiin Sacuudiga halkan. walow ay sheegeen in qolalkii lagu fuliyey falkaasi laga bedelay rinjigii iyo waxyaabo badan oo keenayay in la ogaado maaragtay raadkii arrinta meesha ka dhacday, balse maada ay adeegsadeen Turkidu ayaa waxaa la sheegayaa in ay sheegtay oo iyada oo maaragtay ay sheegeen in la qariyo la isku dayay, balse in ay ilaa hadda ay hayaan daliilo cadcad oo wax lagu qaadan karo. intaas ma aysan weli dawladda Turkiga u dhaafsiinin, balse waxa jawaabta kama dambaysta ama rasmiga laga sugayaa kadib markay baaritaankan labada kooxaan isku dhafkii ay ka sameeyaan qunsulka gurigiisa oo la tuhumayo in laga heli doono, waa say wararku sheegayaan, adilo cadcad ama cadaymo cadcad oo sheegaya wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen. wararka qaar ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in qunsulku uu ka baxay dalka Turkiga oo aanu ku sugnayn maadaama oo gurigiisa la baarayo. arrintaasi wax faahfaahin oo dheeraad oo kasoo baxay ma jirtaa? wararkaasi si hoose ayay u jiraan, balse dawladda Turkiga ilaa haatan ma aysan sheegin in ay uu ka baxay qunsulkii maaragtay waddankan Turkiga inuu ka baxay. ilaa haatan wax si rasmi ah u cadaynaya